arrintaas 10 baanu ka qaadanay ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerarin ciidamadayada meelaha ay ku jiraan way og yihiin waxaanu go-aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaanba inaana meel dejin ciidamada meeshii ugu yar waxaa degan ciidan aada u fara badan oo halkaan tiradiisa aana ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysan bar dambe in ay u suurowdo haddana xogtoodaan helay sirtoodana waa helay dagaalkoodiina waa barno maalinba maalinta ka dambeysa khibrad baa looga siyaada marka shabaab mar dambe ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed midna ma suuragelaysa haddii Ilaahay yiraahdo inuu ama laayo ama u soo dhuunto ama u hanjabo midna waayahay taliye waxaa ka imaanaya warar sheegaya dhexdooda in dagaal xoog leh maalmihii la soo dhaafay uu ka dhex socday horjoogyaal badan iyo maleeshiyada ay iska dileen qaar ay xirxireen odayaashii la fududeyn jiray dhibaataynta bulshada oo lacag u aruurin jiray qaar ay xirxirayaan dhibaatada dhexdooda ka socota maxaad kala socotaan runtii xog badan baa naga soo gaaraysa dad badan baa na soo wacaya waxay dadka qaarkood soo weydiisteen oo aniga toos aan u wada hadalay ayagoo dhahaya fikrigii hana la siiyo oo dadkiina ay ka diideen waxaana soo gaaraya dhexdooda in khilaaf ka jiro oo ay dad iska laayeen waxaana soo gaaraya qolo walba inay hadda rabto cidda ay ka dhalatay hadday deegaanka ku sugan yihiin in ay ku milmaan oo hubka u dhiibaan oo yidhaahdaan naqariya marka meel adag bay runtii ka maraysaa waxaana gaarsiiyey xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee macawisleyda qiimaha badan oo ayaguna ka feer dagaalamaya oo u hambalyeynaya laftigooda insha allahu haddii Ilaahay yiraahdo waxaan shacabka ugu bishaareynaa in aysan gobollada khawaarijo kusii jiri doonin haddii Ilaahay yiraahdo shir bay ku shireen caws weyne sida wararku noo soo tabinayaan aan isdhiibno iyo aan dagaalanayna isku qabteen waxayna u bateen aan isdhiibno waya marka shabaab haddii Ilaahay yiraahdo kulamaa uu arko shacabka iyo xoogga dalka Soomaaliya isku duuban kulamaa uu arko meel walba dadkii uu shalay xukumayo qasbayo oo amarada ka diido shabaab waa isdhiibayaa ama waa cararayaa laakiin ma xukumi doono mar labaad mana khasbi doono mana u caga juglayn doono shacabka Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo